soo dhawaad saaxiib yaal horta marka hore maalin wanaagsan anaka maalin wanaagsan ma noo ahan oo xalay guuldaraa na soo gaartay weliba aan aada uga xumahay guuldaradaasna waxaa dusha saaranaya kooxda iyo qaar ka mid a ciyaartooyda oo sameeyey dadaal aada u hooseeya. Casemiro oo kale xal waa la arkay hore Karajer wuxuu u yiri kubadda cagta intaysan kaa tagin adiga ka tag, hadalkaas waa uu diiday garoomada kusii jiray laakiin xal wuxuu arkay kubaddii inay ka tagtay isaga laakiin isaga uu been isku sheegay. Qodobka labaad ee guuldarada xal noo keenay waxaan dhihi karaa Ten Hag iyo bedeladiisa qaldan ama Diallo xal wuxuu u qalmay inuu ciyaaro oo lagu soo bilaabo gadaal ayuu ka keenay. Marka culaysyo badan way jireen, jahwareera dhacay, labadii gool qaladka ku lahaa Casemiro markuu yimid labadii gool uu dhiibtay ayaa keentay kooxdu inay jahwareerto sidaana ciyaarta usoo laaban weyso. Marka waxaan leeyahay caafiyo way dhacday laakiin Liverpool ha ogaadaan in aniga ka guul badanahay haddii la fiiriyo horyaalkan iyo hadday ahaan lahaydba intaas aragnay. Marka waxaan leeyahay ani isoo gaara oo natiijo ahaan tirooyinka guulaha adinka sareeyo horta soo gaara markaas xifaaltan bilaaba, laakiin kooxda jahwareersan inaad badisaan haddana aad sii doodaan ama faraxdaan ma ahan. sanadkii lasoo dhaafaa xasuusataan garoonkii xalay waa kaga badiyey FA Cup waa anaa ka reebo koobka ku guuleystay gurigoodana bareeja kusoo gala. Marka xalay Casemiro idiin badiyey ee adinka ma badinin, taasaa taaganahay. Manchester way soo laaban doontaa libaax qoyana bisadda moodi.